hogaaminayay siyaasadda lagu xoreynayo ummadda Soomaalida maanta halkan waxaa kaloo mahad mudan raggii soo qabanqaabiyey soo dhaweyntii daraad ka dhacday halkan iyo casho sharafeedka aan iminka halkan u joogno wayna ka hadleen raggii si fiican bay u hadleen maxamuud iyo maxamed wayna sheegeen baahida loo qabo midnimada wadajirka Soomaalinimada si fiican bay u sheegeen anigu ma doonayo caawa inaan ka hadlo siyaasad guud waxa weeyeen waxaan oran lahaa walaalahaye oo NLF inay ogaadaan inay dad leeyihiin ka dambeeya inayna shaqeeyeen inay kalsooni siyaasadda ugu dhaqaaqaan iyaa tusnay ay ummaddu na tustay taana waxaan filayaa inay awoodooda leeyihiin awooddaas oo ah inay leeyihiin cilmi dheer oo dibadda ay ugu maqnaayeen ay baranayeen hadduu yahay ku siyaasadeed hadduu yahay ku dawladeed hadduu yahay ku si dawladda loo wado intaba rag xambaarsan weeyaan marka sidii horey loo yidhi waxaa kaliya oo laga doonayo waxa weeye qaabka abu maanta u naalo ee kililka u yaallo ama sidii uu ku soconayay waxay ahayd si Soomaali halis ku ah jiritaanka Soomaalida halis ku ah midnimada Soomaalida halis ku ah cadaaladda halis ku ah taa sidii maxamuud sheegay dardaaranada kamida inay arrintaa wax ka qaban doonaan waana ku kalsoonahay inay ku qaban doonaan inay ka qaban doonaan cadaalad iyo sinaan ay ku hogaamin doonaan ummadda kililka sidaa waxaan u leeyahay waxaan garanayaa kartidooda iyo afkaarta ay ka qabaan horumarka afkaarta ka qabaan oo ah mid weyn oo positive oo nidaamsan annagu haddaan nahay reerka halkan degan u badan haddii Soomaali la eego dhibaatooyinkeenna way arkeen colalka nagu maqana way arkeen itaalka iyagana way arkeen inaan nahay reer weligii gooni uun u dagaalamayay garab weli Soomaali ka helin waxaan filayaa inay arrintaa ogaadaan xaaladda aan ku jirno cidda aan na hor joogta cidda nala dagaalamaysa iyo awooddeeda inay raggaayna si fiican u ogyihiin una ogaadaan ayaan fariinan fari doonaa farayaa inagoo iga raaliya marka soo dhawaada iminka wixii ka dambeeyana sidii hore loo sheegay si nidaamsan oo siyaasadeed ayaan u wada socon doonaa waa haddii rayigeennu iyo yoolkeennu meesha aan ku soconno uu isku mid noqdo weeye inuu isku mid yahayna waan filayaa iminka waxaana ku soo gaabinayaa inagoo iga raaliyaa intaa iyo nabadgelyo aad baad u mahadsantahay adeer buux maasha Allah